Duulaanka gumaystaha Israa'iil ee xerada qaxootiga Hebron qayb ka mid ah ee daanta galbeed ee la haysto. Tani waa mid ka mid ah ugu yaraan daraasiin duulaan ah oo Israa'iil ay ku qaaday meelo kala duwan oo ku yaala daanta galbeed ee la haysto. Xerada qaxootiga Fawer ee Hebron waa xero ay ku nool yihiin ilaa 8,000 oo qof oo ka mid ah shacabka reer Gaza. Intii uu socday weerarka, ciidamada Israa'iil waxa ay soo ururiyeen wiilal iyo gabdho dhalinyaro ah, waxa ayna weydiiyeen su'aalo ka hor inta aysan xeryahaas ka kaxaysan 10 ka mid ah dhalinyarada reer Gaza. Xeeladan ay ku soo ururiyeen rag badan, ayagoo ku sheegay in ay ugu tixgelinayaan inay yihiin rag in laga shakiyo oo su'aalo la weydiiyo, mararka qaarkoodna saacado badan ay ku qaadanaysay. Waxay noqotay isbeddelka aan ku aragno daanta galbeed ee la haysto. Waxaan ku aragnay weerarka hore ee 2 maalmood ka hor ka dhacay xerada qaxootiga ee Nuur Shamis ee Tulkaram, halkaasoo ciidamada Israa'iil ay waxyeello u geysteen xafiiska UNRWA, taasoo ka dhigtay mid aan la isticmaali karin. Tani waa qayb ka mid ah isbeddelka guud ee ay qaramada midoobay ugu magac dareen ama ay u aqoonsadeen dagaalkii aamusnaa ama dagaalka aamusan oo ka socda daanta galbeed ee la haysto.